dowladda uu madaxda ka yahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa muddooyinkii dambe wajahaysa muujado siyaasadeed oo kaga imaanaya dhanka mucaaradka siyaasiyiinta dhalisa siday wax u socdaan xilligan qaarkood waxay ku jiraan labada gol ee baarlamaanka iyo kuwa banaanka ka jooga hay-adaha dowladda ayaa baraha bulshada iyo warbaahinta maxalli kusoo bandhigay dhaliilahooda siyaasiyiinta codka dheer oo ku dhalisa waxaa ka mid a siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo kasoo muuqda warbaahinta la iska arko idaacadaha iyo baraha bulshada waxaana taas ay maqaar xanuujisa xukuumadda uu hogaamiyey ra-iisul wasaare khayre ugu dambeyntiina keentay in xilli sagdhaxa weer lagu ekeeyey guriga uu degan yahay siyaasigan lana dilay 5 ka mid a ilaaladiisa la dhaawacay siyaasiga kadibna xabsiga loo tixaabay xariga cabdiraxmaan cabdishakuur kama gamban dowladda Soomaaliya waxayse ka soo saartay warcad iyadoo ku aadeysa siyaasiga inuu ku howlala duminta dowladnimada iyo adeegida dowladda shisheeye sidoo warbaahinta u akhriyay qoraal ka soo baxay dowladda Soomaaliya Cabdicasiis Ibraahim Khaliban hafayeenka wasaaradda amniga sida la socotaan hay'adaha amniga iyo xeer ilaalinta waxay maalmahan wadeen baaris dambiyo muwaadiniin Soomaaliyeed oo lagu tuhunsan yahay in ay maleegayeen falal dambiyeedyo ama khiyaano qaran taas oo qalqal lagu gelinayo laguna burburinayo nidaamka dowladnimo ee Soomaaliya waxa reeban in muwaadin uu u adeego dano shisheeye oo ka soo horjeeda jiritaanka dowladnimada Soomaaliya hay'adaha amniga iyaga oo gudanaya waajibaadkooda dastuuriga ah iyo awaamiir ka soo baxday hay'adaha sharciga ayaa xalay abaarihii 12 iyo barkii habeenimo guri lagu tuhunsanaa in lagu abaabulo falal dambiyeedyo da kor ku xisan ayaa markii ay hay'adaha amniga tageen gurigaas muwaadiniintii guriga joogtay u hogaansami waayeen awaamirtii ahayd in la baaro iyadoo la waday warqadihii ruqsadda baarista iyo horgeynta sharciga go'aanka adag ee dowladdu ay ka qaadatay xariga siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur waxay sii kordhisay hadalhaynta siyaasadeed waxaase isha lagu hayay horgeynta hay'adaha garsoor si ay u dhageystaan eedeynta culus ee loo jeeday siyaasigan 22 bishii December ayaa maxkamadda gobolka ka soo muuqday siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame maxkamaddu ahayd mid furan waxaase maxkamadda gobolka xorriyadiisa u walisay Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyadoo meesha ka saartay inaysan jirin wada sharci ah oo loo maray hanaanka lagu soo xiro siyaasiga ee gurigiisa lagu weeraray xafiiska xeer ilaalintuna wuxuu ku guuldaraystay inuu maxkamadda keeno cadaymo waafaqsan dhamaystiran maxkamaddu markay aragtay qodobka 7aad faqradiisa 2 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 7 iyo 13 ee isla xeerkaas maxkamaddu markay aragtay danta guud ee cadaaladda waxay soo saartay go'aanka soo socda maxkamaddu waxay xorriyadiisii u soo celisay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ina maka Xasan Xalane 49 jir ah ku dhashay Buulabardo maadaama aan loo xirin lagu soo xirin waaran maxkamaduna waa noo xirantay go'aanka maxkamaddu ku sii deysay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur wuxuu ahaa dhabaha khilaaf cusub oo ka soo ifbaxay hay'adaha garsoorka waxa saacad gudaheed shir jaraa'id qabtay xeeraalaha qaranka oo ku sheegay go'aanka lagu sii daayay Cabdiraxmaan inuu raafaan ka qaadan doono sharcigan uu hareer maray waxa uu halkan ku cadeynaya special qaas ahaan qodobka 39aad ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 47 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed in uu raafaan ka qaatay go'aankii baalmarsanaa sharciga ee uu gaaray gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir go'aankaas oo uu aragno inuusan sharciga waafaqsanayn maadaama waxa laga doodayay oo kaliya ay ahayd in muddo la siiyo xafiiska oo baaris ku sameeyo ayna ahayn in laga hadlo dulucda dacwad ayna ahayn in la soo bandhigo cadeymo waxay dacwaddu maraysaa stage-kii ugu horeeyay ee baaritaanka maxkamaddu markii horena muddo ka yar 24 saac bay u qabatay taas oo iyadana codsigeennii khilaafsanayd kadibna waxa ay go'aamisay in aan muddo baaris haba yaraatee aan xafiiskii loo ogoleen taas oo iyadana baalmarsan sharciga iyo qawaaniinta dalka sidaa darteed go'aankaas baalmarsan sharciga ayuu xafiisku wuxuu ka qaatay raafaan si waafaqsan qaanuunka dalka u yaala
baxaan maxkamadda racfaanka taasoo qareynta loogu xalaalaysiiyey sii wadisa baaris lagu sameeyo siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame maxkamadda racfaanku waxay burisay go-aankii maxkamadda gobolka ahaa inaan racfaan la qaadan karaynin sidoo kale waxay shaqo joojinay ganaax bay dul dhigtay qaar ka mid a qareenadii u doodayey siyaasiga cabdiraxmaan oo gaaray ilaa 8. marka hore waxay wax u dhaceen maxkamadda racfaanka ee gobolka banaadir ayaa shalay warqadiina soo gaarsiisay warqad magacaabis ah oo ka soo baxday maxkamadda racfaanka gobolka banaadir qaybteeda ciqaabta warqadaasi waxaa ku qoran 8 qareen ujeedadeeduna waxay ahayd magacaabis qareen waxaa la magacaabay qareeno faahfaahinteeda markii gudaha loo galo waxay muujinaysaa in cabdiraxmaan cabdishakuur loo qabto qareeno ka difaaca garsoorka hor soo gaaristii warqadaas markayna soo gaartay 8 qareen waxaan aadnay xarunta ururka qareenada fadhi aan fadhiisanay waxaan hoosta ka xariiqnay in cabdiraxmaan aan u wacno u sheegno in annaga garsoorka uu noo magacaabay aanan ka difaacno garsoorka hortiisa dacwadda loo haysto cabdiraxmaan wuxuu yidhi waa mahadsantihiin uma baahnin qareen haddii dacwad ay noqoto garsoor anaa iska difaacayo sidaasi darteed idinka ima matashaan arrintan waxaa ka hor yimid siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur oo ku tilmaamay maxkamadda racfaanka mid siyaasadaysan oo la soo abaabulay waxaan hore u caddeeyey in dacwad uu xeraaliyuhu ka furay maxkamadda rafcaanka ay tahay mid siyaasadaysan oo la doonayo in lagu xanibo dhaqdhaqaaqayga siyaasadeed laguna dhaawaco magacayga iyo sumcaddeyda si loo hanjabiyo hamigayga siyaasadeed kadib markii uu fashilmay isku daygii lagu qaarajin lahaa 17 Diseembar ee sanadkii ina dhaafay qareenada ay isku dayda maxkamadda siyaasadaysan inay samayso waxay dareemeen inay sharci darro tahay inay ugu matalaan maxkamadda aniga oo aan wakiilan sidaa daraaddeed ay diideen inay difaacaan waana maragmadoonta ujeedada maxkamadda mar haddii ciqaab wadareed ay ku xukuntay dhammaan yaqaanadaas ama qareenadaas 3 waxaa sharci darro ah in mar kale xorriyadeydii uu siiyey dastuurka wax loogu dhimo hirgelinta dana siyaasadeed oo ay leeyihiin madaxda xafiisyada villa Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha idaacadda VOA ayaa ogaatay in xalka qaas lagu sameeyay ku-xigeenka xarliyaha koobaad ee qaranka Axmed Cali Abikar inta uu socday arrinta la xiriirta cabdiraxmaan cabdishakuur oo wali hay'adaha garsoorku ay ku kala duwan yihiin hay-adaha garsoorka Soomaaliya ayaa lagu duraa inay taa meel ay ka jirto cadaalad darro baahday sida meel fagaara uu ka sheegay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la hadlayo kumanaan dadweynaha oo isugu soo baxay gudaha garoonka kubadda cagta ee Stadium Banaadir ee magaalada Muqdisho. Abdulqaadir Okay, VOA, Muqdisho.